si kooban bal noogu faahfaahi. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha qayaalaho waxa way barnaamijkeeni maalinlaha sabtida ahaa oo wiiglaha oo live-ka baan ku soo dhawaada dadkeena daawanay dhamaantiin barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay marka ugu horeyso waa barnaamijii shalay galab ka dhacay ama shalay fiidnimadii ka dhacay magaalada Minneapolis oo ay suubiyeen jaaliyadda barnaamijkaas oo laba nooc kala baxay dad ayidsan iyo dad ka soo horjeeda waxa ila fadhiya hadda oo agteeda fadhiya gudoomiyaha Somali Banaadir community oo aqoonyahan isla markaana aqoonyahanadii Soomaaliyeed oo horey la foolooga soo baxay halkaana wax ku bartay waan qaybteen labaad bay noqon doontaa waxaan dadka leeyahay marka ugu horeyso Sama TV waxay tahay TV waxa way dadka jaaliyadda halkan jooga fair and balance oo weeye dhinac ma jirto waxa marka dadka ka codsanayna dadkeena daawanaya maanta si akhlaaq leh inay nagala soo xiriiraan ra'yigooda ayagoo noo soo gudbinaya sidee u arkaan haddii ay yihiin madaxweynaha iyo haddii ay yihiin kuwa ka soo horjeeda waxyaabaha mudaharaadka loo suubshay dadka ay yihiin dadka kaleba waxaad nagala soo xiriiri karnaan taleefanka 612-746-0553 teeda kale sida caadada ahayd Sama TV waxaad kaloo kala xiriiri karaan dhanka markii la fiirsho online-ka Somali Sama TV Minnesota.org oo labada meelba waa Facebook iyo online-ka marka ku soo dhawaada barnaamijkeena wuxuuna maanta ku saabsanaan doonaa sidaan hore idinku sheegay barnaamijkaasi oo xalay fiidnimadii ka dhacay meesha xarunta weyn ee convention-ka Maxamed ku soo dhawaad Sama TV marka hore waa mahadsan tahay soo dhaweyntaada aad iyo aad u mahadsan tahay waan dhowahay waan joogaa Maxamed aqoonyahan baa tahay isla markaasna joogay community-ga Soomaaliyeed goobjoogna ka ahaa inta badan madax iyo wasiirado iyo ra'iisul wasaarayaal halkan yimid sidee baad u aragtaa marka ugu horeyso guud ahaan barnaamijkaasi sidaan maqalnay dadna way ka soo horjeedeen dadna way soo dhaweeyeen madaxweynaha marka adigu aragtidaada sidee kula ahayd booqashadii shalay madaxweynaha uu ku yimid Minnesota aragti ahaan anigu waan ku faraxsanaa horta madaxweynaha inuu noo yimaado waa madaxweynihii ugu horeysay oo Soomaaliya noqoto dawlad taana halkaan ku badan jaariyada ugu tiro badan Soomaaliya qaaradda America magaalada Minnesota horta farxad weyn bay noo ahayd inaan madaxweynaha aragno noo yimaado ra'yigiisa noo gudbiyo marka talabaad maadaama madaxweynaha nin dhalinyaro uu yahay oo hawsha siyaasadda ay ku cusub tahay wax waliba way hor imaanayaan marka mudaharaadka lagu sameeyay ama bannaanbaxa lagu sameeyay lagu soo horjeeday waxay ahayd mid isaga lagu hub tusaaleynayo in la taageero heshiiskii dastuurka ama constitution-ka ahaa systemka federaalka inuu shaqeeyo in dawladda ay ku saacido qoladii isu tagayso samaysanayso system federaal inay samaysato lagu support kareeyo lagu taageero marka waxay ahayd cashar ama waayarnimo uu ka qaadanayay madaxweynaha hawshii meesha ka dhacday ahayd in lagu mudaharaado taasna waxay ahayd waxaa loo muujinayay in loo tilmaamo in Soomaaliya ay u baahan tahay systemka federaalka ay Soomaaliya isu daashay ay kaligood maamul ay samaystaan dawladda dhaxana ay taageerto marka Maxamed sida hadda ka gartay waxaad raacsan tahay dadka mudaharaaday mise dadku laba nooc bay u kala baxeen dadna way soo dhaweeyeen oo gudaha ku jireen oo way soo dhaweeyeen oo gudaha galeen si nabadgelyo dadna banaankii aad u taagnaayeen oo waxay tusiyeen shucuurtooda marka dadkaasoo ku eedeynaya weliba madaxweynaha xagga siyaasadda oo haddii la fiirsho federaalka nidaamka federaalka ahaa
oo madaxweynuhu way leeyihiin wuu dhinac maray waxaan filayaa in hadda guddiyada farsamadan inayna tusi doonaan dad marka dhinacee adigu aad raacsan tahay maadaama madaxdii community-ga dalkan aad tahay aniga horta nin Soomaaliyeed baan ahay qaranka Soomaaliya inuu hagaago dadka aad u jecel baan ahay maxaa yeelay qof wax ku soo bartay ana qaranka ka soo shaqeeyay yaqaana qarannimada waxa ay tahay qarannimo waxna lagu soo baray marka anigu horta ma jecleen in lagu mudaharaado madaxweynaha ama waxa la sameeyo laakiin waxa weeye waxyaalo ay lagala kulmay madaxweynaha inuu mudaharaadkan lala yimaado isaga oo ay ka waayeen qoladii rabtay Jubbaland inay sameystaan maamulkoodii ku taageeri waayay ku muujin waayay inuu support gareysan yahay isagoo hadda xiriir waaweyn uusan lahayn maamulada hadda ay jiraan loo baahan yahay in boorka loogu jafo madaxweynaha ordo oo meel walba aado oo tago Puntland tago gobolada dhexe tago meel walba maamulka jiro lagu support gareeyo waqtiga la sixila hadda lama joogo laakiin marka hore waxa la joogaa qolol intay meel isu istaagi lahayd ka bacdi sixitaanka dib laga bilaabo marka maxamed adigu aad u maasan marka waxaad leedahay madaxweynuhu waxa laga rabaa in uu dadkii la xiriiro gobolada qaarkood uu tago arintan Kismaayo ama gobolka Banaadir laftigeeda uu tago marka dadku waxay ka cabanayaan miya xukuumadii loo ikmaday in ay federal noqoto uu ka leexday miya والله هذا ما لا قياس كرو حكومة مدير بيجرتها ولي ومجد إنه سانسان فترة يكو أيضا أما يكوهل قلنا أيان لكن مستقبل كوالي إيجدونا مركي لغاتك استكتو حوغيستو قابك فترة أي ولا فلق ليسو لكن هذا ولي مموقته إن فترة إيو حكومة وضع شقين أيان أما كم موقته وضع شقين سيستم فدرالك inkastoo dastuurku uu ku jiro in federaalka lagu shaqeeyo marka imaatinka madaxweynaha maadaama aad madaxdii community-ga halka tahay ma lagu soo sheegay community ahaan ma ka warqabtay laba beri ka hor ama ka warqabtay inuu imaanayo madaxweynaha horta madaxweynaha idaacadahan ka dhageysanay mar walbana Soomaaliya waa la soconaa inuu imaanayo madaxweynaha oo ka soo bilaabay Washington kadibna jaaliyadaha inuu la kulmana gadaal baan ka ogaanay marka problemka in haysta waxa waaye Soomaalida wili uma bisla qarannimo iyo Soomaalinimo uma bisla wili qaabkii laga soo tagay oo qabaa'ilka iyo qaabka daraa ayay xataa magacii qaranka rabaan inay ku abaabulaan ay ku sameeyaan markaan arkay qaab qabiil iyo balaayo wax lagu abaabulayo dib ayaa noogu gurtay inaan qaabka kula abaabulo because maana jecleen in qaabkan ku abaabulno ama in lagu abaabulo waxay ahayd qaab Soomaalinimo ama community-yada in loo geeyo community maadaama community halkan joogan community-da inay horboodaan iyaga leadership ka qaataan ay la shaqeeyaan wixii magaca community-ga jaaliyada Minnesota dhan lagu abaabulo way noqon weyday waxay noqotay qaab lagu abaabulo beel oo dadkii aan la soo wargelin cidna loo sheegin marka inkastoo ay saas dhacday laakiin waxaan ku boorinayaa wax kastoo la qabanayo in loo wada qabto wada jirnimo because hadda qaran baynu nahay dawladdu waa la aqoonsan dawlad jirtaan nahay marka dawladdu inay shaqeyso Soomaalinimadana inay dadka ka qayb galaan Soomaalinimadooda iyo dawladoodii soo dhaweyntoodii iyo hawshoodii kulli oo marka adigoo maxamed maadsan waxaan haddaan soo qaadano waan dhageysan doonaa madaxweynaha khudbadiisa iyo waxa ku jirta markaan soo gaabino wuxuu yiri waxaan loo inkamaday yiri anagu hadda xukuumadda Soomaaliya nahay cusub 6 qodob baa markii hore qaadanay yiri waxaan ka qaadanay 6 qodob 3 qodob oo caalamka la nimid 3 qodob mid wuxuu ku sheegay amniga inay tahay mid wuxuu ku sheegay garsoorka inay tahay midna wuxuu ku sheegay in dhaqaale dejin ama canshuur ururintii markuu ka hadlay qodobka federaalka wuxuu yiri waan loo doortay waan ku dhaaran laakiin buu gashay arintaas ay kula tahay macnaha nidaamka federaalka oo la socotid oo la socota siyaasadda Soomaaliya oo xukuumadii hore Puntland ka wada qayb galeen ma sooran kartaa madaxweynuhu mataqaana wuxuu dhinac ka maray nidaamkii la dhisay si haddaan u fiiriyo waa loo maleeyaa in dhinac ka maray laakiin 3 qodob uu sheegay waa 3 kun muhiim ah asaaska ah
marka hore in ammaanka la sugo dhaqaalihii la sugo hawsha la qabtay kabacdi ayaa howlaha kale la qaban karaa marka in lagu degdego go-aan lagu gaaro madaxweynaha saas u sameeyey maahan loo sugo xataa dowladdii uu asaga sameeyey 100 maalmood ma jirto marka ilaa ay dowladdu xoogsanayso muddo laga arkayo in la dareemo ayaa laga ogaanayaa wax qabadkooda iyo hawshoodii inkastoo hadda saan gaabin ay jirto wada shaqeyntii gobolada iyo maamulada iyo wixii inkastoo ay jirto haddana in laga warsugo ayaa ilaah boon aniga adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan daawadayaal waxaan wax yar aan filan doonaa in khudbadii madaxweynaha oo xalay laga soo duubay inay noo soo tabiyaan baan yara sugaynaa marka weli waxaan leenahay Sama TV taleefanka waa idin furan yahay ra'yigeena soo dhiibta haddii aad taageersan tahay madaxweynaha imaatikiisa iyo haddii aad ka soo horjeedid waa idin furan tahay Sama TV waa fair and balance ma aha dhinac marka waxaan idinka sugaynaa inaad taleefanka qaadataan nasoo wacdaan ra'yigeena halkaan ka dhiibataan waa idin tabinayna insha Allah haddana waxaa diyaar inoo Cabdikariin oo inoo soo gudbinaya bal nala dhageysta khudbadii madaxweynaha weligeeda marada inta loo balfiyaa dadkan wax maslaxadan ku gaareen ma laha dadka fursad hala siiyo degmadan qabaa'il Soomaaliyeed degan qabaa'ilka degan way isgaranayaan haddii ay kala badan yihiin si kala badan yihiin isgaranayaan geedka hoostiisa inta fariistaan ay tashadaan shan qof ama 15 qof council degmadeena noo ah ayagaa noo talinaya ayagaa noo dooran inay dhihi karaan aan rabnaa meeshaan ku socono hormara meeshaas marka fadlan ayaan loo dhagar nuglaanin propagandada iyo dacaayada iska magaciisa mataala kan soo qaado waxaa la yiri oo aad u qaybiyay been fakatay kulama gaartaa la yiri madaxweynaha Beledweyne intuu tagay yaa wuxuu yiri reer Beledweyne maamul samaysta reer Kismaayo anaga u sameynayna wax jira الدنيا عصري عن كل مرة وركي أنا عن بلدوينة كيري أصاب مقل يموقال وبدوبية وبين وركاسي وحركة من جيران مرضيهم إن عندنا ديارين ضبط الصومالي دور طبعا مدعونا هو هاي دمان كودان ربان حين البوليسكا dhammaantoodaan rabaa inay awood u yeeshaan ay ku gaari karaan go'aan aayahoodii iyo ilmahoodii cidda u talinayso ay go'aan ku gaari karaan nin marka awoodi kari waayey ra'yi siyaasadeed inta la yimaado dadka inuu qanciyo oo wax u sheego oo wax qabad uu tuso oo ku gabanaya reer hebel haddaan nahay reer hebel haddaan nahay waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan qabaa'ilka Soomaalida dhammaantood sharaf iyo haybadii leeyihiin waan ka soo quusanay Soomaali haddaan nahay waan ka rajo dhignay wax reer gaara u roon oon reerka kale u rooneen inaan helno waa soo dhignay waxaan raadiyoonaa qoraada waxa xigmadda aan isticmaalaynaa wixii hooyada uurka u roon ayaa cunuga uurka ku jiran u roon wixii Soomaaliya u roon ayaa reer kasta oo Soomaaliya u roon waxaan Soomaali u roonayn reer gaar ay u roonan karaan ma jirto Cabdikariim waxaan filayaa inaad weli way socotaa khudbadda waa idiin soo gudbin doonaa hadduu alla idmo maxamed madaxweynuhu hadda wuxuu aada ugu adkaadaad u malaysaa in uu leeyahay Soomaali ma la kala saarayo Soomaali dhib bay wada qabtaa Soomaali marka maxaad u malaysaa hadda yani dadka uu isugu yimid dadka shacabkaasi haddeertaan ka muuqatay ra'yiga uu madaxweynuhu wallaahi khudbooyinka madaxweynaha uu soo jeedinayay waa dhageystay khudbooyin aad iyo aad u fiican ayay ahaayeen uu dadku wada tusaaleynayay inay Soomaalida midaysan yihiin isku mid yihiin aanan 4.5 lagula dhaqmaynin ay wax walba maamulkooda jiraayo wixii Soomaalida u roon inay dawladdan u roon tahay inuu ku dadaalayo bal laakiin waxa la ogaanayaa ra'yigaas fiican فعلك طبعا والله تلفونك قبسننا بل هذا تلفونك هلا السلام عليكم هلا ولا مقعاقي سؤال شاقبتت والله مقعي علي يوسف جيرا
وايا علي اوكي رايigaaga noo sheeg walaal magacayga cali yuusuf baa la yiraahdaa su'aasheedu waxay tahay ra'yigaygu waxa waaye madaxweynaha markuu ka hadlayo federaalka waxa tiraahday laakiin bugeliyay marka halkaas waxaan rabnaa in faahfaahin ama aan noo sharaxdaan baa waxa uu laakiin bugeliyay waa okay waa maasan tahay laakiinta waxaa ku wanaagsan isaga in la weydiiyo maxamed ma ka jawaab kartaa madaxweynaha dhowr goor waan dhageystay khudbooyinkiisii federaalka iyo wax walba uu sheegay wuxuu yiri baarlamaanka inuu dastuurka ku qeexa waayo dadka say isku wada raacayaan qaabka loo shaqeynayo qaabka canshuurta loo kala qaadayo si wax ay u soconayaan in federaalka wax soo gooyaan way marka federaalka waxaan soo gooynin ama dastuurka waxaan ku qornaan aan la raacin ma shaqeynayo okay taas ayaa laga waday laakiinta because madaxweynaha kaligiis go'aan ma gaari karo waa inuu wuxuu ku yimaadaa baarlamaanka iyo dastuurka waa maasiyaan telefoon kale haduu jiro waan qabsanaynaa halo assalaamu calaykum وعليكم السلام أولا سؤال شادي مقعاق مركوري مقعي واحد هذا حسن حسين بالي هذا هيه سؤال شان روينا ويدي واحد هاي دولة الصومالية مدحونا واحد وشاقي إن نظام فدرالي وإراعي دونان وما هيك حدين نظام فدرالي الراعو إن أي كرقوين ومدى صومالية من مدينة أي أتوب ريفينيشن ما دام الصومالية أي كرقوين بسنتها حقا haddii nidaam federaal uu isticmaalo ay keeni karto inay Soomaaliya qaybsanto oo ay kala qayb noqoto arrin farxan uma eka wuxuu yiri federaalku Soomaaliya inay kala qaybsanto oo awalba iyadoo dagaal sokeeyay Soomaaliya marka dadku waxaan u maleeyaa federaalku fahamsaneen maxamed adigu maxaa ra'yiga أنا waxaan ku darsanayaa systemka federaalka ma ahan system Soomaaliya kala goynayo kala qaybinayo ma ahan waa system fududeynaya gobol walba ama dadka Israaciil state walba inay helaan service-ka ay u baahan yihiin maadaama waagi hore central government jirtay xamar kaliya ka shaqeyn jirtay oo ninka raas caseer degan xamar wax soo doonanay ninka degan madqana zeyla xamar soo doonanay ninka raas kabooli degan xamar soo doonanay ayaa service-kii ayaa la kala fududeynaya qolo waliba sidoodii ayay maamulkooda u qabanayaan dawladda central government-gana waa hoos imaanayeen marka saas ayaa loo shaqeynaa ma wax kala qaybsanay wax kala baabaaya ma jiro meeshina hadda qaabkan jiro madaxweyne iyo waa baabaaya Soomaaliya waxa ka jiri doono hal madaxweyne kuwa kale waxay noqon doonaan governor oo kale okay telefoonkan kale telefoonada isku soo daba dhacaya halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum salaam awal magacaaga su'aashaada TV-gan iska magacayga waxaa la dhahaa Xuseen Birre waxaana ahay wiil jaamacad Minnesota aado ayna bartaa culuumta siyaasadda marka maxay tahay madaxweynaha waxa uu ku soo koobay oo ah security-ga awoodiisana uu isugu geeyay iyadoo wadanka ay joogaan ciidamo kala duwan maxuuse ka wadaa marka uu leeyahay awoodeena dhan waxay maxuus uga hadli lahayaa dhinaca dhaqaalaha waxyaabo badan oo kala duwan ayaa meesha ka socdo laakiin maxay tahay dhanka dhaqaalaha waxa kaga aadan inuu ka yiraahdo markii ay imaato dalka dib u heshiisiintiisa ama amnigiisa wuxuu yiri madaxweynuhu wuxuu awood saaray xagga amniga muxuu uga hadli waayo xagga dhaqaalaha iyo say kula tahay okay madaxweynaha aniga waan la qabaa inuu amniga saaro because wax walba amniga ka horeeyay amni hadaan la helin dhaqaale ma la helayo marka hadii wadankii wax xasileen wax la helayo ma jiro waad ka warqabtaan dawladii ku meel gaarka ahayd dhaqaalaheeda waa la dhacay waa la boobay حتى قارف دتك مدحدا ayaa kala boobay marka hadaan amni jirin control jirin waxba jirin wax hagaag kar ma jiro markii amni la helo ayaa dhaqaale la heli karaa marka amniga in la sugo waaye si qofka looga xisaabtamo hawsha uu hayo hubkana laga qaado amaankana loo sugo okay hello assalaamu calaykum hello hawar magacaaga su'aashaada magacayga Cabdinaasir baa la yiraahdaa oo su'aasheedu waxa weeye haddii Soomaali hubka cunaqabateynta loo fasaxo ma laga yaabaa maadaama wadankii oo xagaha uuna yaanin dhibaato inay ku codso maxamed horta arrintan cunaqabateynta hubka ka qaadisteeda dood badan bay Soomaalidu si qaldan bay u qaaday ra'yi ahaan maadaama adigu aad cilmi u leedahay xagga siyaasadda sidee kula muuqataa Soomaaliya maanta in hubka cunaqabateynta laga qaado
aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa horta Soomaaliya waxay u baahan tahay horta dib u heshiisiin dhab ah haddaanan dib u heshiisiin dhab la helin kalsooni imaanin hadda dawladda awoodeeda dhan waa magaalada Muqdisho meel kale ay haysata ma leh marka meel kale oo maamulkeeda gaaro ma jiro marka haddii dib u heshiisiin dhab imaanin dadka isdhexgalin oo Soomaaliya midoobin oo baabuurkii halkan ka baxo oo toos u aadin mataqaanaa Boosaaso baabuurka halkan ka baxo toos u aadin Kismaayo ama Baydhabo una qabateenta inay way sii jiraysaa maxaa jiro ma jirin dib u heshiisiin dhab ah kalsooni ma jirto marka wax kasta imaan kara hadhowdii qolo inay hubkii qaadato dad kale ku xasuuqdo ama dhib kale imaan kara ilaa Soomaaliya ka midoodo ay wada jir timaado wax wada qabsadaan wax wada qaybsadaan isdhexgalaan mu malaynayo inuu hirgalayo marka waa ka soo horjeedaa hubka in cunqabateynta in la hirgeliyo waa ka soo horjeedaa in la hirgeliyo waxaan qabaa in Soomaaliya horta marka hore heshiiso dib u heshiis dhab la sameeyo hantida gaarka iyo la soo celiyo la walaalayo dadkii qulubtooda la isku keeno markii waxaasay dhacaan markaas imaan karaan waaya maxaa leenka qabsanana hadda assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo su'aasha TV-gan iska gaab walaal magacayga waxaa la dhahaa TV-ga iska gaab codkaaga soo noqonay walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Muxabba waxaan deganahay Minneapolis saashan u qabo waxay tahay ragga meesha fadhiyo walaalayaal anaga horta dawlad ma diidanin dawlad la'aan ma fiicna inaan dawlad rasmi noqono waa ku faraxsanahay laakiin su'aasha meesha ku jirto waxay tahay maxaa dawladda hadday isbedeshay oo dawladdeena ku margaarkeeda Shariif uu tagay waay dawladda isu bedelay laadahay waay maayarka oo marna u galaya baarlamaanka marna uu maayarkii iyo gudoomiyihii banaadir uu noqona waay nin kale oo Soomaaliyeed oo muwaadin ah uu u noqon waay qabiilku raba ha noqdee su'aashan qabataas waay taasaan anaga nagelisay cabsi iyo walwal guryaheeni iyo xoolaheena meeshaas ay ku dhumeen ay ku maqan yihiin wax weli ka hadlaayana ma jirto in dadka la wada fariisiyo oo waxooda loo soo celiyo Muxabbo waxay aad uga doodaysaa waxay leedahay qaybsiga awoodeed bay hadalkeeda sidaan u fahmay marka see u aragtaa horta hawshan waxa iska leh executive-ka ama maamulka dawladda ha noqdo prime ministerka ama wasiirada ama madaxweynaha ha noqdo ayaa iska leh inay magacaabaan maayarka magaalada Muqdisho ama governorka gobolka Banaadir inay magacaabaan hadba waxay ku xiran tahay iyaga siday u arkaan qofka ay magacaabayaan iyo shaqada uu qabanayo loo inkamo inkastoo ay fiicnaan lahayd governorka ama maayarka waxba weyn dhibaato u sameeyay ma jiro laakiin inkastoo ay fiicneed in Soomaaliya la isdhexgeliyo oo ku xigeenada dad kale laga dhigo beelaha kale degmooyinka maamulka loo dhiibo sidii dadkii la isku soo dhaxgalo problemka dadka haysta waxa waaye beel ayaa ku badan maamulkii oo dhan ayaa gacanta ku haysata marka si maamulkii loogu midoobo ama wadankii loo soo galo way adag tahay okay leenka qabsanayna telefoonka maxamed adiga u mahadsan hallo assalaamu calaykum walaal codkaaga igu soo noqonay TV-ga iska gaab magacaaga iyo su'aasha وعليكم السلام مقعي حاول يراه حاوي aniga aragtidayda xalana fadhigii waan ka qayb galay aragtidayda aniga dadkan su'aalaha wada dawladdu 3 bilood ay jirtaa ma la diiday oo ma la waayay in dawladda cagaha loo dhigo oo waxay gasho iyo waxay guddo la kala ogaadaa oo xididada loo aasaa oo madaxweynuhu si fiican u hadlay dadkan seeflaboodka dawladda ma sugi karaan okay waxay leedahay maxaa dawladda loo sugi waayay maxay dadkan u qaylinayaan dawladda 3 bilood bay jirtaa aragtidaada maxamed dawladda ana ma qabo cid diidan ama cid ka soo horjeedo ama dawladnimada hadda jirto cid mucaarad ku ah Soomaaliya waa jecel yihiin waa la wada sugayay waa la wada taageersan yahay dawladda meel kasto Soomaaliya kamid aan ka ahayn Somaliland laakiin inta kale oo dhan waa la taageersan yahay dawladda waa la jiraa laakiin
dadka xaq bay u leeyihiin inay xaqoodii ka doodaan ama dowladda hadday inka tirsanayaan ay siyaas ahaan ama boor ahaan ama fikra ahaan u dhiibtaan wax weyn maaha diidmo oo dowladda la diidan yahayna maaha okay diidma haddayna ahayn maxamed runtii dowladda laftigeeda hadda maamada gabadhii ka horeysay waxay tiri maamulka gobolka banaadir magaalada muqdisho caasimad bay ahayd dadka in laga qayb geliyo xukuumadda inay ka qayb qaadato soomaha gurihii dadka inay ka saarto inay magaaladii mataqaanaa sidaa sheegaysa u qabi soomaha inay wax tusto waa runta hadda dowladdii hadda waa bilow bay joogtaa waktigayna qaadanaysaa because dadkan 22 sano ayaa dadka quluubtoodii kala baaba'day la kala cararay leysnacay marka way adag tahay dadkii si laysugu soo noqdo laysugu yimaado time bay qaadanaysaa marka dulqaad baa loo baahan yahay in lagu sabro maamulka dowladda jirtana waxaa loo baahan yahay soo dhaweyn inay dadka soo dhaweeyaan ay raaligeliyaan oo nin walba u yimaado gurigiisa inuu ku dego la siiyo wuxuu xaq lahaa hantida gaarka ah hantida maguurtada ah in la siiyo qofkiisa kii beera lahaa beertiisa la siiyo loo hiiliyo kii guri lahaayna gurigiisa loo hiiliyo waa mahadsan tahay maxamed waxaan qaadanaynaa hadduu teleefon jiro hallow asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga iyo su-aashaa walaal waa su-aashaydu su-aalkaas anu ma qabo laakiin su-aal magacayga waxaa la yidhaha madiino haye ma su-aalkaas ma qabo laakiin waxaan soomaalida waxaan weydiinayaa markii ninka la doortay madaxweynaha ah 3 bilood oo hore waa ku shamuumnaa 3 bilood oo dambana waynu diidnaa oo waynu caynaa midda kale madaxweynaha waxaan weydiin lahaa hubka waa ka hadda raadinayo hubka laga qaado cunaqabatade ma dad buu weyn lahaa mise waa iibsan lahaa labadaasaan su-aalood ka qaba oo madaxweynuhu okay madaxweynuhu hub hal isiiyo buu yiri la maylu ka yir ma jirtaa ma maqlani okay arintaas lama maqlan hallow asalaamu calaykum hallow walaal magacaaga iyo su-aashaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحميد هيا عبد الحميد عبد الحميد سؤال قوي waxay tahay maadaama dawladdan lagu soo dhisay qaab qabiil oo baarlamaanka lagu soo doortay qaab qabiil ninkan madaxdaana uu hadda ku qabay wasaaradihii iyo maamulkii iyo Soomaaliya in 3 qolo kaliya ay sharciyeysatay gudoomiyada baarlamaanka madaxweynaha iyo prime minister iyaga kaliya inay helaan marba soo wax qaldan uma eko Soomaalida inta kale xaqooda la dusinayo maxay tahay arintaas wuxuu leeyahay maadaama gudoomiyada baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo kulligood ay halqaha reesaarihi hal qabiil wadayiin waxaan filayaa soo lama oran karo arin qabiil see u aragtaa والله أنا وحنو أركا قاب كده أي كل سنة دولة إني سحسنتها إلى في عنتها إلى قمنتها محاجر وقف كستو وإحنا قبيل بكتير سنة قبيل وبالون سبين هيا مركا ودميها برلمان كانوا ديجلي مرفلة كان مدحوينان وهوية ودميها برلمان رئيس وزراء ودارات مركا 6 قبيل كلا دوام وهم مركا معهن قاب قبيلة ما الله فيرنا أيه بيكوس الله فيرنا يا بالانس دولة إن لا بالانس كرايو. أوكي هذا هو ما سنت محمد بالله كان فيرنا. هلا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد مركور ولال. مقعد وحلي هذا عبد الناصر وحن هلكان كسلام يا نسمة تي في يوم ما ملكودا سؤال شيء وحاوية madaxweynuhu shalay khudbad buu muxuu ahaa ka jeediyay Minneapolis xalayto markii su-aasha aan rabaya waxay tahay nidaamkii iyo ama doorkii uu watay uu rabay inuu muxuu ahaa ka sameeyo jubbooyinka halkay maraysaa ama muxuu ahaayo halkay maraysaa okay nidaamka jubba waxaan filayaa markuu madaxweynaha ka hadlay waa dhigay khudbadiisa maxamed nidaamka federaalka wata haday sharxays bal ugu soo celi madaxweynaha uu ka hadlay maamulka federaalka wuxuu yiri maamul federaalka waa in gunta hoose laga sabaaraan degaa nin inuu ismagacaabo boor soo qaato yiraahdo ani gudoomiyaha ama madaxweynaha waxaan ahay Jubbaland ama Jubbaland state
ayaan kasoo horjeedaa aniga waxaan rabaa in hoos laga soo bilaabo asaas loo soo bilaabo ay dadweynaha dadka ku nool saddexda gobol oo isku imaanayo wax ay raalli ka yihiin iyaga soo samaysteen ay magacaawdeen in lala yimaado ayaan aniga taageersanahay marka wax uu hadda uu noo sheegay sideen afkiisa ka qabanayno anaga waxaan ku xukmin karnaa waxa uu sheegay sidaas uu hadlay hadalkiisana hadal xun ma ahayn hadal qurux badan oo ahaa marka waa loo baahan yahay dadka meesha degan waxay ku heshiiyaan inay la yimaadaan halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum walaal codka tv-ga iska gaabi codkaaga ee kooba ku jiro magacaaga inoo sheeg marka taageeradaada iyo haddaad taageersan tahay dadkii banaanbaxay haddii aad taageersan tahay dadkii aysanaa haddii aad ra'yi qabtid intaba soo dhow halo ha waa ku maqalnaa walaal magacaaga ma maqlin laakiin walaal qamaraa lay dhahaa qamar waye micnaha waxaan aada iyo aada uga xumahay dadka iyagoo dawladda aan ka hortaga ee weerarka ku qaada la dagaalamo dadkaas ayaan aada uga xumahay oo soomaaliyeed oo waxba horumar aan rabin marka waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed inay dawladda sugaan oo cagaha u dhigaan intay wax u qabanayso marka caado ayay u leeyihiin inay dawlad walba lasoo dhistay ay dagaal kusoo qaadaan la dagaalamaan marka madaxweynahana aada baa uga xumahay in la afligaadeeyo oo la yiraa muxuu ahaa hubkuu gadanayaa iyo maaragtay hubka dadka ku xasuuqaya iyo dadkaas yacni waxay u egyihiin dad aan horumar u baahnayn oo aada iyo aada horumarka uga liita xaggiisa marka maasha allah marka ilaahay laga cabsado dad islaamaha leeyahay marka dawladii lasoo doorto cagaha loo dhigo waayo qamar waa mahadsan tahay waa laga qaata ladaadi hallow salaamu calaykum okay maxamed aan taleefonka waa usoo noqon doonaa waxaa jirta dadka guuxa dadka inta badan waxaan filayaa in madaxweynaha markii la doortay gobollo qaar uu tegay gobollana ma tegin for example magaalada kismaayo ciidanka qabsada waa ciidankii dowladda ahaayeen beledweyne uu tegay baydhabo uu tegay soo lama oran karo marka dadka taasay ka cabanayaan waa suuragal laakiin taasi waxay ku habbooneed su-aashaas kale madaxweynaha in la weydiiyo sababtu xagga u tegi waayey laakiin way mudnaayeen in loo tago iyagana xaggaas gobolka jubbada hoose kismaayo oo lagu dhiirigeliyo hawshay qabteen iyo dadaalkay ka gaareen la dagaalka al-shabaab iyo xuranta magaaladaas hallow salaamu calaykum hallow okay markaan usoo noqon inta onlineka noo soo baxay waxaan dadku sheegaynaa weli waa sii fadhiya waxaa inoo soo socda banaanbixii dhacay baan filaynaa inaan idiin soo gudbin doono xalay dadka ra'yigooda ay subsanayeen marka intaan u gelin waxyar waxaan rabnaa inaan maxamed communitiga banaadiriga balaan usoo noqon waxyar su-aalaan kaa weydiiyo communitiga banaadiriga oo aad muddo haysay see hadda oola shaan qaadi kartaa dowladda federaalka ee cusub horta hawsheena inta badan waxa waaye social service siyaasad iyo howlahaasi annaga shaqadeena maahan annaga waxaan ku jirnaa social service dadka imaanaya soo dhaweyntooda iyo dadka immigrationka u baahan dadka guryaha u baahan dadka magaaladan joogo baahidooda haysata inaan wax u qabano iyo dadka naga fog oo aan haysan jaaliyad ama community ama Europe ha joogaan ama ha joogaan contact state inaan caawino laakiin kamana marnin maadaama Soomaali nahay dareenka Soomaalinimada nagu jirto in Soomaali siyaasadeeda iyo wixii waxaan tari karno waxaan wax ka qaban karno saan dad ku dhiirigelin karno inaynu qabano waa mahadsan tahay waxaan filayaa koolkaan waa sugeynaa asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga iyo su-aasha qabto maayid mucaarad walaalo magacayga Shamsaa la dhahaa haye waxaan mucaaradkaan ahay okay sababtana waxa waaye madaxweynaha meeshuu xamar xasilin lahaa xamar dejin lahaa oo hubka aruurin lahaa uu kismaayo dhahay ayada isma xukumi karto gobolada qaarkoodna ha isxukumaan okay marka waa inuu cadaalad noqdo gabadhii hadda hadlaysaan u jawaabaya magacaaga weli ma maqal magacaaga ma noogu soo celin kartaa magacayga Shamsa Cabdiyaa la dhahaa Shamsa waaya waa mahadsan tahay way ku maqlaysaa waan filayaa waxaan weli dadkeena daawanaya taleefanka waa idin furan yahay
waxaan jecelnahay bal wax yar kadib markuu cabdikariin u diyaar garoobo inuu idiin soo gudbiyo banaanbixi bal hadda koolkaana qabanayna hadduu taleefonka jiro halow halow asalaamu calaykum halow inta uu taleefonka soo dhacayo halow halo ha asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo mucaarad mu-ayid kee tahay maanigu mu-ayid ah mucaarad miih nin kastoo madax noqdo okay asalaamu calaykum waa fiicannahay aye waa taageersada magaca magacaygu waa safiya muunye maxamed abu waa itaqaanaa haye waa idin salaamay horta bahda sama t v okay halo safiya marka waxaa waaye maxamed halmara u sheegi lahay arrinta madaxweynuhu beledweyne wuu tagay kismaayo muxuu u tegi waay arrintow madaxweynaha beledweyne ku tagay waa wada ogtiin t v-ga dhanna waa ka fiirsateen waa arrintii biyobaxadii iyo taageeradeedii kismaayona ma diyaar waa u yahay inuu tago haddii ilaahay yiraa kulley brograamay ku socdaan dadkaan madaxde yaa howl weyn laga dhigin dhulku waa wada dhulkeenni wax kala duwanna ma leh waa mahadsan tahay safiya aada iyo aad baa mahadsan tahay halow hadduu jirin waxaan ka codsanayaa bal in aan isla daawano banaanbixii xalay ka dhacay maadaama aad aragteen khudbaddii madaxweynaha mu-ayid dadkii ahaa bal haddana aan daawano banaanbixii magacaygu waa cabdisamad cali nadiif caawa waxaan meeshan u imaaday inaan ku mudaaraado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sababtoo ah maalinkii la doortay ilaa iyo maanta ahna taagannahay macnaha waxaa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay jubbaland siyaasadda guracan ee qabyaaladii eexda leh hadduu ka dayn waayo jubbaland waxaanu u sheegaynaa rag tashada u tagaa shacabka reer jubbaland ayahooday ka tashanayeen xaq waxay u leeyihiin inay dhistaan maamul goboleed hadduu xasan sheekh maxamuud diido asagay u taallaa federaalkuna waa diidan yahay suu sheekarow dastuurkuna waa jebiyey 16 degmo ayaa magaalada muqdisho ka kooban tahay sababtoo ah xasan sheekh maxamuud dadka aniga kula hadlaya ayaa xaq wax u lahay inaan degmooyinka gobolka banaadir maadaama caasimadda soomaaliya tahay soomaaliya ka dhaxayso inaan wax ku yeesho muxuu ugu mashquulayaa jubbaland taasi waxaanu dhihi karnaa waa qabyaalad iyo eex iyo wax laga xisho maalin wuxuu leeyahay waan idiin ogolaaday maalin wuxuu leeyahay anigaa baawar waxaa weeye baawar nin baawar wax ku keeni kara male shacabka soomaaliyeed baa ku doortay dowladda soomaaliya waanu kuu habaliyeynay haddana siyaasad xumada aad wadid wax loo dulqaadan karaa ma aha oo wax lagu fashilmayo waxyaabahaas oo kale waxaana kuu sheegaynaa siyaasadaha noocaas oo kale ah iyo dharradii afrika ku fashilin baanu ku leenahay jubbaland annakaas kale xaq waxaanu u leenahay ilaa ayaha naga ka tashanno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxamuud cali axmed qodbadayda in badan baa loo gudbiyey waxgaradka jubbaland baa u gudbiyey waxgaradka soomaaliyeed oo in baa la taliyey laakiin waxaa weeye qoro action group la yidhaahdo oo soomaali 22 sano halkaa gaarsiiyey ayuu la tashadaa waxaanu leenahay annagu muwaadiniinta ku nool maraykanka waxaanu leenahay ninkaasi wuxuu dalbanayaa inuu helo hub iyo dhaqaalo suulo hub dadka shacabka soomaaliyeed u geliyo dagaal sokoy waayo al-shabaab baanu ka xoreynay yacnaa jubbaland shacabkeeda haddaanu nahay waxaa xaq u lahaa inuuna taageero maalin wuxuu leeyahay gobollada kale anaa u dhisayo wuxuuna tusay ficil xun buuna tusay marka sababta daraaddeed baanu ugu tegaynin hadalkiisana aan u rabin federaal diidka doona madaxweynaha waxaa loo doortay inuu ka shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda isukaankeeda inuu dhibaatadii 23 sano ay Soomaaliya ku soo jirto ka saaro caruuraheena xabsiyada ku jira waxa weeyaan hooyooyinkii baa dayacana maalin kasta in laga qaataa dadkeeni waa dhaqan doorsoomay gudaha markii la joogo dadkii gaajo u dhamaadeen marka looma dooran inuu jeclaysi samaysto qabiil jeclaysi uu keeno ma aragtaaye waxyaalaha qaarkood uu ku dhaqmaa inuu ka waantoobo waxaa lagu haystaa hadda New York markii hadalka ugu dambeysay dad qurba joog oo la kulmay inuu yiri Jubbaland dadkiis kala xamar bay qaxooti ku yihiin dadkaan meesha joogana waa warlords waxaan u aragnaa anaguna isagu warlord yahay maadaama loo doortay madaxweyne
wixii loo doortay iyo maamulkiisina uusan ka soo baxayn uu ku shaqaynayo dadka kale ra'yigooda iyo maskaxdooda federalismka inuu tirtiro federalismka hadday noqoto inuu tirtiro waa in maxaa la yidhahdaa wixii hore looga soo gudbay waa in dib loogu noqdo madaxweynenimada waa in sheekh shariif lagu celiyo iyo kalbareernimadii dastuurkana waa in dib loo qoro isaguna waa inuu kursiga ka degaa oo mar labaad loo sameeya doorasho maaragtay si tii hore kadib u dhacday waa in loo sameeya hadduu dastuurka because dastuurku wuxuu ka horreeyay asaga madaxweynenimadiisu ka horreeyay marka waxa حاجة وسو وريقة سو وريقة سو وريقة سو وريقة والله أرتوتي وحويان ما حيسا ما قبانو إيران خدمتي سدقي حيسا ما قب صوبته واحد بدن بالفيرية واحد بدن بالمعركة هذا الذي سأفيرية وأنا أركي ولا قب حيسا وحان أركي دولا وجعلان دولا إيران خدمتي سدقي استو أم هذا الذي مرك هذا وحيس كبدل سيدا وكسعده وحان قبا رأيه وكسعده إن أي سنة هاي رأي أسوي إسكالية دت قرب الشوجة يدت كلا بدها كجرا رأيه وده أيهين وحان كلا الله هم ربا إن عنده a leader must have a great knowledge to solve every problem in his own intelligence. aad iyo aad bay umahadsan tahay gabadha Soomaaliyeed oo waxaan filayaa inaad aad u daawateen welina way socotaa waxaan filayaa inaan qaybteeda dambe idin soo gudbin doono hadda waxaan u soo noqonaynaa bal xaqii telefoonada haddii aan helno ama maxamed sidee u aragtaa shucuurtaada intii Soomaalida hadeertaan sidee u aragtaa waxaan filayaa Soomaalida ay baxday oo hadeertaan laga baxay xiliga qoriga oo la galay in boorar la qorto marka boorarkaasi iyo dadka ra'yigooda ka hadlaya sidee u aragtaa والله رأي في عوايا وحي سميين برنامج نبضات أو أن وحبا نبات الجيسين أو رأي جود موجنايو كم موجنايو بور أهان يفعل هذا الأهان كم موجنايان مركا فكرة أهان ويفعل قاب قصني وحلا سميه أوكي نبات تلفك وجرها الله محمد هلا والسلام عليكم هلا السلام عليكم هلا waxaan filayaa xag farsamo halo mi maqlaysaa walaal halo okay iska wad waa farsamo soo noqon doonaa macnaha waxaa tiri yani dadka shucuurtoodii iyo aan wadnay iyo maadaama waxaa aragtay Soomaaliya dagaal sokeeye ka timid laakiin sida xal ay suubiyeen dadku boorar baa la soo diyaariyay dadkiina waa loo fasaxay gudihii ku mudaaharaadeen sheegan see u aragtaa arrintaasi والله قاب أو طلابه هو مرة لقاضي أو قاب ديمقراطيات قفك إنه رأيه سديبتو قفك مدحوينها أما قفك مسؤول كه يمد إنه أبندقه قاب كيس إدرين كيس سي مدحوينها ودريمو شعب كأسقو مدحكيه هي وحيالا اللي ببتنايان إيو صدق سحلها أما وحي ربان وسمين لها أما وحدتك ماجورتي كربتان كوذا لو تحقلين لها مركوا رأي في عن قابك مظاهرات لو سميناي ان wili waxa inoo socda leenka inoo socda wili hadii waxaan leenahay dadkeena daawanaya nagala soo xiriira 612-746-0553 waxaan hadda u noqonayaa maxamed runtii halo salaam calaykum walaalaada halo ha walaal magacaaga iyo su'aasha rabto halo ha waan ku maqlaynaa walaal TV-gan iska gaabi magacaygu waxa weeyaan Cabdi Xasan okay Cabdi Xasan Cabdi Xasan oo ku maqlaynaa ko waxaan mudaaharaadka iyo xaq socodaan fahmi waaye ma maqlaysaa waa ku maqlaynaa ha Cabdi daruntii ninkan afar bilood oo kaliya oo meesha madaxweynaha soo way ka dhis sanad hasiyaan okay maxaa leedahay waqti hal la siiyo okay wuxuu leeyahay waqti hal la siiyo hal sano hal la siiyo maxamed see waragtaa waa runtii sida aniga qabataas weeye madaxweynaha halo assalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga iyo su-aasha walaal walaal magacay Jamaal waaye su-aasha qaba waxay tahay walaalkii xaalada Soomaaliya waa federalism marka aniga waxay ila tahay in macnaha qof walba meeshii deegaankiisa uu soo dhisto kadibna hal meel dhaxal iskugu imaado marka waa maqal madaxweynaha mar uu dhahay baladweyne iyaga is xukumaan
jubbalandna marka waa loo sameynaya marka arrintaas ilaa fahmi waayo marka macnaheeda salaamu calaykum macnaha doodii beledweyne jubbaland waxaan filayaa arrintaasi websaaryada dhan bay ku taallaa oo madaxweynaha arrintaasi uu ku fashilmay sidaan filayo waana laga arki karaa websaaryada balse wuu saxayaa xalay ayuu saxay baan u malaynaya maxamed madaxweynuhu wuxuu yidhi arrintaasi waa la saxayaa kulle jubbaland waxay ka mid tahay soomaaliya waana saxinaa wixii qaladaada halow asalaamu calaykum ha walaal magacaaga iyo su-aasha rabta walaal magacaygu maxamed waaye yaa walaal magacaygu maxamed waaye maxamed haye su-aashaan qabo waxa weeye walaalow su-aashaan qabo waxa weeye soomaaliya maanta ayadaa u baahan hub in laga ururiyo hub in loo dalbado ma ahan waa gartay ku soo celi walaal maxaa tiri su-aashaan qabo waxa weeye soomaaliya maanta hub in laga ururiyo u baahan tahay hub in loo dalbado ma ahan marka arrinta cunaqabateynta wey okay macnaha arrinta cunaqabateynta waxaan kaloo ka hadlayaa federalismka waxa la yidhaahdo haye inuu madaxweynuhu ka leexleexdo oo ama hadalkiisa u cadaysto sidii markii hore beledweyne u tago u cadaysto ama si cad oo uga noqdo oo kismaayo u tago la hadlo dhaho dhista wixiin oo la ogaado waxaad labadaas su-aalood baan ka hadlaya anigu waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay maxamed haye horta run ahaantii xaqiiqdii dawladda way u baahan tahay inay hub hesho si ay ula dagaalanto al-shabaab ama cadowgeeda ay u baabayso ugumaado oo amniga kusoo celiso laakiin waxaa jiro weli waxay u baahan tahay dawladda laftirkeeda inay ishabayso oo amniga la soo celiyo kalsoonida dadka la soo celiyo wax walba la soo celiyo ciidanka laftirkiisa laysku dhafo maamulka ciidanka ruuxiisa wax weyn laga bedelo dadka hubka haysta la bedelo ciidanka ruuxiisa la siiyo orientation iyo abaabul hadda waad aragtaa ciidan markuu ta afgoy tago bilalaqa iyo kufsigu galayaa because waa mooryaantii oo haddana shaarkii bedeshay waxay tegayaan jowharay tegayaan saasay u kufsanayaan weli waxay u baahan tahay in maskaxdooda la dhiso aqoon la baro disciplineka militariga la baro waxay u baahan tahay in soomaalidii kale gobolada degan ciidamada lagu soo daro reer baydhabo in ciidanka lagu daro reer kismaayo ciidanka lagu daro reer jowhar ciidanka lagu daro reer hiiraan la keeno sidii soomaalida waagii hore ahaan jirto kale laakiin hadda ciidankii waxay u badan yihiin ciidankii beeshii xamar haysatay ciidankoodii ayaa joogo dadkii ku barbaaray kufsiga iyo boobka iyo dhaca ayaa haddana ciidankii ah marka haddii hub haddana loo keeno waa kasii daran tahay marka waxay u baahan tahay dadka in dib loo dhiso ciidanka dib loo dhiso aqoontooda la kordhiyo la baro inay discipliin leeyihiin waa mahadsantahay maxamed waxaan filayaa inaan noticekan sama t v sidaan horeyba idinkugu sheegnay waa fair and balance waxa weye waa moderate marka haddeertaana waxaan filayaa teleefon baa gacantuu taagaya cabdikariim bal alo asalaamu calaykum عليكم السلام ولا walaal magacaaga iyo su-aashaada walaalo sacdiya la yidhaha walaalo sacdiya walaalo haye waa ku maqlay sacdiya soo dhawow waa mahadsantaa walaalo ninkan isku sheegaya madaxweynaha dhahaya madaxweynaan ahay kitaabka ilaahay buu marka hore ku dhaartuu yiri wadanka waxbaan ka bedelaya kitaabka ilaahayna caano maaha oo iskaba dhaara maaha haddii marka hore kitaabka ku dhaartay waxaan bedelayaa waxa ka bedelo dawladan cadaaladana ku shaqeeyo walaalo intaas aan leeyahay walaalo waayo aad iyo aad baa umahadsan tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay teleefonkan kala qabanaynaa halow waa gartay marka hadda sama t v waxay idiin soo gudbinaysaa daawadayaasha muayidka ayaan leenahay waxay dhex gashay dadkii taageersanaa imaatinka madaxweynaha inala daawada الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين العاوية آدي أيام نقول فرح سنة هاي حفلة عن أقبلنا إنه عن غير مينيابوليس مدحوينه هنا مدحوينه مدن حسن محمود آدي أيام دتك كسر قيب قلي أي أبديهن سيد الرجين هيبة كنت تدفع عن أيام كسر قيب قلي aad iyo aad ayay dadku ugu faraxsan yihiin inay madaxweynahooda ay soo dhaweeyaan madaxweynihii koobaad oo aan ku meel gaar ahayn oo dawlad Soomaaliyeed oo caalamka aqoonsan yahay oo waqti badan 20 sano ka hor noogu dambeysay aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu dawladda uu noo barakeeyo
madaxweynaha inuu ilaahay barakeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu yacni madaxweynaha dowladda u barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dowladdan ilaahay uu nooga dhigo dowladdii waddanka qaban lahayd oo yacni marka horumar gaarsiin lahayd ilaahay nooga dhigo subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa yacni mataqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa awood leh inuu isu kaaya raacsho maanta guusha aan ku jirno aad ayaana u faraxsanahay waana mahadsantihin xafladda caawa meesha ka dhacaysa waxaa weeye xafladdii magacaygu cabdulaahi saalax weeye reer minnesota xafladdan caawa ka dhacaysa waa xaflad lagu soo dhaweynaya madaxweynaha soomaaliya aad baan u soo dhaweynaynaa waa xaflad sharaf leh oo madaxweynihii nagu soo booqday minneapolis intaasina falmaane tabaarak dareenkayga wax badan ayuu dareemayaa waxaan u imid caawa inaan soo dhaweeyo madaxweynaha soomaaliyeed waxaan doonayaa waddankeenna inuu noqdo soomaali midowda oo aan 3 iyo 4 magac lahayn ee hal Soomaaliyeed ah dareenkayguna waa dareen sare waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub oo Soomaaliya inaan si gacmo wada jir ah annagoo reer Minnesota aan ku soo dhaweyno daawadayaal saad halka uga daawanaysaa Sama TV waxaan joognaa goobtii xafladda Convention Center Minneapolis Minnesota halkaas oo aad ka arkaysaan dadka si u soo dhaweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne ama president Xasan haddana waxaan wareysan doonaa dad kale oo iyaga xafladda ka soo qayb galay iyo dad kale oo mucaarada banaanka jooga daawadayaal saad u aragtaan ayid waaleeyihiin dadka mucaaradka haddaan ku bilaabo iyaguna garbaan siinay maxaa yeelay madaxweynaha waxyaalo badan oo mugdiya ku jira ayaa jira u baahan yahay inuu maaragtay uu hagaajiyo ama dadka kalsoonidooda soo celiyo dhinaca kale dadku qaarna waa raacsan yihiin madaxweynaha iyo sida uu wax u wado 3 bilood la soo dhaafay taasna waa waxyaalo maaragtay muhiim loo baahan yahay laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo wali cakiran oo ay ka mid tahay arrinta maaragtay gobolada jubbooyinka oo ay ka mid tahay in madaxweynaha uusan wali booqanin meesha liya Puntland arrimahaas oo keenay kala xasaasi dheeraad ah loona baahan yahay madaxweynaha inuu taxliiliyo oo maaragtay arrimahaas wax ka qabto waa muhiim madaxweynaha inuu kalsoonida goboladaas oo dhan soo celiya hadallada qaar dadku way fasiraan oo maaragtay hadal ay ku daraan sida ogeed madaxweynaha waxa loo baahan yahay inuu maaragtay ka digtoonaado hadal maaragtay uusan ka fiirsan oo ay dadku si kale u fasiran karaan iyo hadallo maaragtay ay dadku maaragtay qaar si kale u fasiranayaan marka madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa maadaama ay tahay dawladdii hadda maaragtay Mareykanku ictiraafay in ay maaragtay ku dhaqaaqdo sidii ay dadku dhan isu maaragtay ay u kulmin lahayd laakiin uu ka fogaado waxyaalaha dadka kala geynaya madaxweynaha waxa uu eedeynaysaa meesha waxaa jira baarlamaan waxaa jira prime minister dowladda waa kala qaybsan tahay marka waxaa intaa xakameyn kara ka bedeli kara raajiyada kale madaxweynuhu waa dowladda asagaa u sarreeya sidaa awgeed madaxweynuhu awood ayuu u leeyahay waxyaalo badan baarlamaanku ama waa ku waafaqi karaan ama waa ku diidi karaan laakiin go'aankaas uu ka go'aa marka waxa weeyaan dawladdiisa waxa lagu miisaami doonaa sida ay Soomaali isu keento sida ay ummadda ay uga dhigi lahayd mid laakiin haddii uu tafarruqooda iyo maaragtay khilaafiyaadka maaragtay hadda la sheegayo uu ku sii wado waxa weeyaan Soomaali waa sii kala tagaysa taana danta guud iyo danta shacab maaragtay waddanka kuma jirto waxaad u sheegtaa madaxweynaha waxaad u sheegtaa hogaamintu inay shuruudo leedahay shuruudda ugu horreysa inay tahay mid adag degdeg liican flexibility leh halku dheg marka lama rabo halku dheg lama rabo flexibility baa raba hadday meel kugu xumaatay inaad meel kale u leexan kartid laakiin haddaad tiraahdo anaa ciri dadkaad kala didinaysaa ka daale waxaan filayaa inaad aad iyo aad uga bogateen convention centerka oo Sama TV xaluulan ay dhex wareegaysay dadku waxay isugu jiraan dad mucaarad dad matqaana maayida waxaan hadda qabsanaynaa bal telefonka waqtiga iyadoo gabagaba ah kadibna hallo assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal magacaaga su'aasha maayid mucaarad midaa tahay walaal waxba ma ihi waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo
aad iyo aad ugu baraarsan madaxweynaha markaan maqlay marka dadka Soomaalida ayaa waxaan u sheegayaa in aynu yeelanay madaxweyne waxaynu siinaynaa time asaga ayaa meel walba dhisi doona oo wax walba samayn doona marka waad ogeedeen intaan ku jirnay maxay ahayd dawlad la'aan Soomaali haddaynu nahay please give him a chance magacaaga walaal anigu waxaa la dhahaa Shamso waaye walaal aad bay umaasantahay Shamso koolkan kala qabsanaynaa hallo assalaamu calaykum hallo السلام عليكم وعليكم السلام والمقعد عورة عورة الله هي سودو ما حافظ ما أيد والله waxaan ay qof Soomaaliyeed maarna mihim ayd nimihi laakiin waxaan yar dhibsanaya madaxweynuhu waxa uu sheeganayo inuu u muuqdaan jeclaan lahaa ma garad aad iyo aad TV-ga iska gaabi codka kugu soo noqonaya walaal raali adiga walaalow waxaan aad u jeclaan lahaa inuuna madaxweynuhu noqonin dagaal ooga cusub ee uu ahaado madaxweynenimada uu sheeganayo inuu ku socdo una muuqdo leecamaha loo jeedinayana iyo waxyaalaha daliisha keenayana uu iska ilaaliyo waa maasan tahay hallo okay maxamed sewarta madaxweynuhu waa inuu noqon bila dagaal ooge anaga bal intaan taleefanka gaarin horta waxaan filayaa xilligii waqti ma haysano maxamed gabagabadii baa lagu jiraa marka gunaanadkii gabagabadii baa lagu jiraa intaan soo gabagabeynin annagoo taleefon maqli doon bal adigu maxaa u gudbin lahayd jaaliyadda Soomaaliyeed ee hadda halkaa ka dhageysanaysa okay marka hore madaxweynaha aan ka hadlo madaxweynaha waa nin dhalinyaro ah waa nin aqoon-yahana excuse me waa nin aqoon-yahana laakiin wuxuu u baahan yahay consultants la taliyayaal oo isaga la shaqeeyo oo khibrad u leh oo way araga dad waliba da'weyn oo way araga soo gubtay kaalmeeya caawiya madqana wixii adjustment la sameeyo la hagaajiyo aad ayay ugu fiican tahay waliba oo Soomaali ah isku dhafan oo beel lama rabo Soomaali ah isku dhafan inuu weerto xagga ammaanka xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda wax waliba xagga maamul kulli marka taas ra'yi fiican waaye madaxweynaha waa fiican yahay dadaal buu baahay kaalmo aad adoo maasan waa ku soo noqonaya wax yar gabagabadii baan sheegayaa waxaan dadka u sheegaynaa marka hore raali asoo iga maxamed barnaamijkaas complete Sama TV waxay diyaar u tahay maalinta Jimcaha soo socota saacadu markay tahay 6 barnaamijkii complete mucaaridi maayidba maxamed sii wado okay waa mahadsantihiin Soomaalida gabigeedba ama kuwa Minnesota yay u qaadan mataqaana in macaarid iyo maayid iyo jiraan kulli wadaniyiin baan nahay wadankan waa jecelnahay hilow baan u qabnaa waan soo wada tagnay waan u baahannahay inaynu aadno laakiin inaynu ku dadaalno way aan talooyin siino madaxweynaha iyo dawladda ay kulli qaabkii anaga ku aadi lahayn ku dagi lahayn anigu waxaan qabaa in la sameeyo dib heshiisiin dhab ah Soomaaliya dhan la isku keeno la heshiisiyo wixii la kala tabanayo la sameeyo kii dambi galayna cafis dadku weydiisto hortooda ku weydiisto because dhibka jiray dhib sahlan ma ahayn mana laga soo kaban karo marka waxay u baahan tahay marka dulqaad iyo sabar iyo isku tanaasulid aad iyo aad baa umahadsantihiin waa Sama TV yaan ilaawin kala soo xiriira Sama TV mn.org Facebook iyo internetkaba waxaan barnaamijkeeni maanta oo live ka sabtida inta ayaan ku soo gabagabeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh again waxaa wasiinayaa maalinta Jimcaha yaan ilaawin 6 o'clock barnaamijkaas complete hadduu alla idmo MTN-ka channel 16 baad ka arki doontaan wassalaamu calaykum waxaan aad u jeeday dadka wajiyadooda maanta cawada halkan joogo wajiyadooda xamaasad ka wada muuqato iyo farxad ireereen maxaa yeelay madaxweyne oo si cadaalad ah oo aan geed loogu soo gamban loogu doortay ayaa meesha yimid oo aan kulligeen TV ka wada fiirsanayn marka sidaa awgeed qof kasta inuu ku niyadsan yahay oo u jeeda inuu madaxweynahan uu si sharaf leh ku yimid wuxuu kun sharaf leh meesha ka socdo ilaahayna gorbkood Allah gal Soomaalina hamidowdi waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Ciise Saraar runtii